بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينه ku-xigeenka kusmaha gudoomiyaha baarlamaanka wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha waxbarashada ee Soomaaliya wasiirada Hirshabeelle iyo xildhibaanada la taliyaasha heerka sare oo xafiiska ra'iisul wasaaraha waalidiinta ardayda culimaadudiinka bahda waxbarashada oo iskuulaadka in alla intii karaama halkan ku fadhisa mudankiina iyo magaciina idinku salaamay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh runaantii ardada iyo waalidiinta iyo bahda waxbarashadu waa soo gudbiyeen dibka meesha ka dhacay intuu la egyahay waqtiga arintu dhacday siday u dhacday saameynta ay yeelatay runaantii waxaan aaminsanahay oo aan bogaadinaynaa talaabtii ugu horeysay waa la qaaday dhibaatadaas dadkii geystay in muxuu ahay dadkii ugu horeeyay la qabtay muxuu ahay laga abaal mari doono kullay baaritaana ku socda laakiin annaga tuhun waxaan qabnaa dhibkaanu hal qof inuu ka weyn yahay laakiin baaritaanka sheegi doona annagu ka hor dhici mayno si dadka muxuu ahaa dhalinyarada iyo waalidiinta iyo maamulka iyo systemka oo dhammaanba kalsooni u qabo waxaan rajaynaynaa in cadaaladaas la dhameystiri doono oo horta arintaas xisaabtan rasmiga laga sameyn doono arinta labaad waxba uga noqon maayo imtixaanka dhacay iyo sidoo ku dhacay arday waa soo wada ahaan jirnay qisha dhacay iyo ma dhicin qofkii wax bartay oo isku kalsoono asigoo qish jiro waxbarashadiisa iyo imtixaankiisa siday tahay ku qaada jiray laakiin saasay tahay systemkii waa la gilgilay xalayna u baahan tahay sida waalidiinta iyo mas'uuliyiinta kale ay u sheegtay annaga dhibaatada dhacday waxba nooga daran waxa noo daran in mustaqbalka dhalinyarada iyo shahaadadooda iyo karaamada shahaadadaas leedahay iyo jaamacada in la aqbali doono inaysan shaki la gelin oo waswaas la gelin oo aan la durin dhalinyarada waxaan rabaa inaan u sheego arintaas hadda waa idila fududahay laakiin arin saameyn la waay dhalinyaradu loodlooday u xisaabtamaan aniga hadda idila hadlaayo waqtigii muxuu ahay af Soomaaliga iyo af Ingiriisku ay kala wareegayeen waxaan ahaa ardadii lodkii ugu dambeeyay af Ingiriisi wax ku barta lodkii naga dambeeyayna af Soomaaliga wax ku barteen dadkan iskuuloodahay waa la sheegaa lodkii Ingiriisku dambeeyay maadaheed lodkii af Soomaaliga lagu bilaabo maadaheed saasaan isnaa annagu ma rabno in lodka 2018 iyo 19 shahaadadooda magacooda mustaqbalkooda in mugdi la galiyo ma rabno taas aan noogu muhiimsan waxa kale oo noo muhiimsan dibkii dhacay in laga garaabo laga raali bixin geliyo muxuu ahay laga bixiyo muxuu ahay ii sheeg raalinimo ardada loo naxariisto waqtiga imtixaanku dhacay la tixgeliyo waqtiga uu dhici doono la tixgeliyo runtii inkastoo wasiirku ka hadlay duruufaha keenay haddana xalay waxaan akhrinayaa report wadan muxuu ahay Yurub ku yaala oo imtixaankiisi dib loo dhigaayo maadaama ay Ramadaan ay tahay imtixaanka GCC la yiraahdo oo systemka Ingiriiska hadayba wadanan muslim ahayn oo Ramadaankii dirtiis karaamo oo imtixaanaadkii uu dib u dhigaayo oo waalidiintii u tixgelinayo annagu waa qabnaa inaan tixgelino waliba Ramadaanka uu sii dhamaado oo ciidda loo sii dhawaado oo tahajjudkii la galo dhibkeeda ay leedahay taa ka hor dhici mayno laakiin sida dareenkeena aan u jeesanayna qodobka saddexaad waxa waaye imtixaankan imtixaan caam waaye oo standardized test wadanka oo dhan hal mataqaana cabira wax lagu cabira Soomaaliya wax la qabnaa si gaar ah anagu dhibaato gaar ah ma qabno hal gaarana raadi mayno halkii Soomaali oo mataqaana xalaha annagana xal noo ah yaa loo fahmin marka aan leenahay waxbarashadeena mas'uuliyadeedii yaan qaadanay waa u taaganahay xuquuqda dhalinyaradan u taaganahay xuquuqda waxbarashadan u taaganahay waxana noo qaadmin inaan qaadanaan u taaganahay dhalinyaradeen inaan meel fiican ku hubsanaan u taaganahay laakiin maadaama imtixaanku imtixaanka shahaadiga uu yahay oo wadanka dhan oo iskaga mid yahay mar rabno haddana in la dhaho sidii tii koobaad oo kale reer Hirshabeelle waagii xogaa waa dagaalmeeno imtixaan gaar ah laga qaado marka sidaas daraadeed shahaadadooda waa la duray ma rabno waxaan rabnaa wixii Soomaali u dana meeshay Soomaali marto ayaan anaguna maraynaa mudana wasiir waad maqashay culayska jira
waad maqashay dhibaatada jira dhalinyarada waxaan leenahay waxa ama social media lagu sheegaa ama mataqaana hadallada xoogaa mataqaana fafakaday annaga idinka raali gelinayna annaga madaxdiiniya annaga idinka taagan muxuu ahay muwaadiniinaad tihiin xuquuqaad leedihiin xaqaad u leedihiin inaad qaylisiin xaqaad u leedihiin inaad dareenkiina muujisiin leedku duri maayo taas leedku shaambadayn maayo annaga u taagan xuquuqdiina inaan muxuu ahay inaad heshaan adikuna kalsoonida aadna siiseen waa idinka mahad celinaynaa go'aanka ugu dambeeya oo arrintaas ay qaadan doonto annagoo arrimahaas ay u kala horeeyaan ka fiirinayna waxaan kalsooni ku qabnaa in wasaaradda iyo dawladdeena iyo dawladda Hirshabeelle oo isla socda inay go'aan waafiya oo ujeedadu ay tahay mustaqbalka dhalinyarada inaan mugdi la gelin imtixaanku inuu nadiif noqdo cadaaladu ku jirto xal sidaas inaan isla helno dhalinyaradana waxaan leenahay kalsooni waxbarashadiina ku qaba waalidiintiina ku qaba madaxdiina ku qaba waxaanan idin qalmin annagaanan idin soo qaadeen idinkana taas ku seexda aad u mahadsantihiin waftiga noo soo safray oo wasiirada ah oo intaas noo yimid aadan ugu mahad celinayna inay dareenkeena iyo culeyskeena dhageystaan wixii ka soo baxa wada hadalladaas iyo wixii mataqaana sida wax la yeeli doonane annaga idin joogna annaga miiska idin fadhina annagaan idin ku soo celi doonna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh